السلام عليكم داوديل kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo mowqifkii ugu adkaa ka qaadatay heshiiskii ay wada galeen Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ee ay Itoobiya kula wareegayso qayb kamid ah biyaha Soomaaliya dhammaan hogaamiyaashii soo maray Soomaaliya sida madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaarayaal hore Xasan Cali Khayre Maxamed Xuseen Roble iyo siyaasiyiin ay kamid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo si isku mid ah u cambaareeyay xadgudubka Itoobiya kula kacday qayb kamid ah biyaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo loogu goodiyay in loogu soo gali doono aqalka madaxtooyada haddii aanu si degdeg ah uga laaban dhabaha qaldan ee uu doonayo in uu ku maamulo doorashada Puntland sida ay mucaaradku ku goodiyeen qodobada iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoob ayagoo dhameystiran isoo noqod haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta xidigta Banaadir oo dhameystiran fadlan daawada xusuusno xuska iyo xiriirka alle markasta oo tuko salaada si ay ku soo gaaraan xilli walba wararka iyo warbixinada warbaahinta xidigta Banaadir fadlan rukumo oo subscribe saaro channelkan mahadsanid aan ku bilaabay cara xoogan ayaa ka dhalatay heshiiskii dhexmaray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo dhigayay in Itoobiya ay la wareegto qayb kamid ah biyaha Soomaaliya gaar ahaan badda oo ay Somaliland ka siinayso dhul cabir ahaan dhan 20 kilomitir waxayna Itoobiya si gaar ah u danaynaysaa dekada Saylac halkaasi oo ay dekad ka dhisanayso kana furanayso saldhig military oo ay ciidanka badda Itoobiya ee kol hore la aasaasay ka howlgali doonaan maadaama aanay Itoobiya bad lahayn ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in tan ay tahay farxad iyo guul weyn oo Itoobiya u soo hooyatay maadaama ay muddo dheer ku taamayeen in Itoobiya ay bad hesho wuxuu sheegay Abiy inaanu garanayn wax uu ku hadlo oo aan ka ahayn in uu alla u mahad celiyo mar uu qoraal kooban oo Soomaalida ka caraysiyay ku qoray bartiisa Facebook safgaradka oo loogu yeeray mid iskaashi iyo wada shaqeyna ayaa bayaanka lagu sheegay in loogu talagalay inuu noqdo qaab dhismeed iskaashi dhinacyo badan leh oo dhexmara Somaliland iyo Itoobiya iyadoo la ogyahay in Somaliland ay wali tahay gobol kamid ah Soomaaliya oo aan madax banaani haysan dhinaciisa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shir jaraa'id oo ay wada qabteen Abiy Ahmed ka hadlay ayaa sheegay in Somaliland ay safgaradkan ku bedelatay in Itoobiya ay u aqoonsato Somaliland dal madax banaan markii heshiiska la saxiixo Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in Somaliland ay siinayso Itoobiya dhul badeed dhan 20 kilomitir oo ay degaan ciidanka badda Itoobiya sidoo kalena ay dawladda Itoobiya dekad ka dhisato Muuse Biixi ayaa sheegay in safgaradkan uu dan u yahay labada dhinac oo mid walba uu ka helayo faa'iido ballaaran si gaar ahna Somaliland ay faa'iido uga helayso maadaama ay aqoonsi ku bedelanayso in ay qayb kamid ah badda Soomaaliya ee danka Somaliland ku taal ku wareejiso Itoobiya waxaa xusid mudan in warqadda ka soo baxday xafiiska Abiy Ahmed aan lagu xusin aqoonsiga uu shaaciyay Muuse Biixi hase yeeshee Muuse waxa uu cadeeyay in arintaasi ay ku qoran tahay safgaradka la kala saxiixday ee dhexmaray isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya haddaba tan iyo markii go'aankaasi soo baxay carab ballaaran ayaa ka dhalatay waxaana si weyn uga gadooday shacbiga Soomaaliyeed iyadoo oo dawladda federaalkuna ay mowqif adag durba ka qaadatay kadib fadhi gaar oo ay yeesheen golaha wasiirada iyo kulan degdeg ah oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka yeesheen arintaasi oo uu hortagayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo dawladda federaalku Itoobiya talaabada ay ku faragelisay madax banaanida dhuleed iyo tan biyaha ee Soomaaliya si weyn ay dawladda federaalku u cambaaraysay isla markaana ay hoos u dhigtay cilaaqaadka ay la lahayd Itoobiya oo ay si toos ah xiriirka ugu jartay waxa muuqatay in dawladda federaalku ay si weyn go'aankaasi kaga gilgilatay xilli loo dabaaldegayay asbuucan wada hadaladii dalka Djibouti ku soo ilaaday ee dhexmaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland hase yeeshee waxa soo afjaray rajadaasi Itoobiya oo durbadiiba dhabarjabin ku sameysay Somaliland la gashay heshiis ay kula wareegayso qayb kamid ah badda Soomaaliya dhammaan siyaasiyiintii dalka xilalka kala duwan ka soo qabtay ayaa si isku mid ah u cambaareeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa damaca guracan iyo dhulboob ku tilmaamay heshiiska ay Addis Ababa ku gaareen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi heshiiska isafgaradka ah ayaa dhigaya in Itoobiya ay Somaliland ka hesho dekad iyo bad ay saldhig ka dhigtaan ciidankeeda badda ee dhawaan dib loo aasaasay
maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu sheegay in heshiiskan uu baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ah iyo kan midowda Afrika wuxuuna dhaawac ku yahay wadajirka iyo xasiloonida dalalka gobolka sida awgeed wuxuu sheegay inuu cadeynayo in cid kasta oo ku lug leh ay taariikhda ka galayso baalmadow qaadanaysana mas'uuliyadda cawaaqib xumada ka dhalan karta heshiiskan dowladda Itoobiya wuxuu ugu baaqay inay ka waantowdo damaca guracan oo wiiqaya heshiisyadii isdhexgalka bulsho iyo iskaashiga heer gobol kaasi oo ay aas-aas u ahayd ilaalinta madaxbannaanida iyo dowladnimada shucuubta gobolka si waafaqsan xeerarka gaarka u ah dal kasta iyo shuruucda caalamiga xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay si degdeg ah ugu istaagaan gudashada waajibaadkooda qaran ee ku aadan xadgudubka ka dhanka ah madaxbannaanida iyo gobonimada dalkeena isagoo xasuusiyay guushii ay ka gaareen kiiskii dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhaxeeyay Kenya oo uu saldhig u ahaa qaraarkii dhaxal reebka ahaa ee uu soo saaray baarlamaankii 8aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud ayuu sheegay isagana inay waajib ku tahay ilaalinta midnimada dhuleed badeed iyo ummadeed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya lana dhowrayo go'aamada masiiriga ah iyo talooyinka qaran ee u qalma jiilasheena dambe dhankiisa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa isaguna si adag u cambaareeyay heshiiska dhexmaray Abiy Ahmed iyo Muuse Bixi safgaradkan ayuu sheegay inuu yahay mid meel ka dhac ku ah madaxbannaanida Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu sheegay inay yihiin laba dal oo darisa oo kala mudan isxaq dhowr iyo wax wada qabsi ku dhisan ixtiraam qarannimada dal walba wuxuuna sheegay in aan la aqbali karin in Addis Ababa ay ku tallaabsato qaadashada qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya wuxuu sheegay in madaxda iyo shacbiga Soomaaliyeed aysan ogolayn in taaka ka mid ah biyaha Soomaaliya dal shisheeye loo gacan geliyo sida darteedna laga midaysan yahay ka hortagga damaca guracan ee Itoobiya dhankiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isaguna si adag u cambaareeyay damaca Itoobiya heshiiska sharci darrada ah ee ay wada gaareen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland ayuu Sheekh Shariif sheegay inuu xadgudub ku yahay madaxbannaanida dalkeena una ka hor imaanayo qawaaniinta adduunka dowladda Itoobiya ayuu ugu baaqay inay ilaaliso daris wanaaga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dal wuxuu ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u midoobaan ilaalinta midnimadooda karaamadooda iyo kheyraadka dalkooda oo aan marnaba damac guracan lagu qaadan sidaan oo kale waxa cambaareeyay mowqifkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdikariin Xuseen Guleed waxaana siyaasiyiinta iyo shacbiga Soomaalidu ay mowqif isku mid ah ka qaateen damaca guracan ee dowladda Itoobiya ay ku doonayso in ay kula wareegto ama ku boobto qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ugu dambeynna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa loogu goodiyay in loogu soo gali doono aqalka madaxtooyada Puntland ee Garowe haddii aanu ka waantoobin wadada uu ku wado doorashada Puntland oo ay mucaaradku tilmaameen in uu kaligiis doonayo in uu tartamo oo uu galo hoolka doorashada musharaxiinta mucaaradka Puntland ayaa ku goodiyay in hadda kadib aan lagu wada hadli doonin banaanka iyo hoolka baarlamaanka midna balse Deni loogu gali doono guriga uu ka degan yahay gudaha aqalka madaxtooyada Puntland xilli ay gudaha magaalada Garowe galeen ciidankii ugu badnaa oo dhanka mucaaradka taabacsan kuwaasi oo diidan qaabkii loo maamulay liiskii soo baxay ee xubnaha baarlamaanka Puntland beelaha Puntland ay intooda badan shaaciyeen in kuraastoodii uu boobay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni xaaladda Garowe ayaa qasan waxaana laga baqdin qabaa haddii uu xaalku sidan ku sii socdo in ay gacan ka hadal isku bedesho Saciid Deni ayaa u hambaleeyay xubnaha soo baxay ee baarlamaanka oo intooda badan isaga taabacsan kuwaasi oo la dhaariyay gudoomiye ku meel gaar ahna ku doortay aqalka baarlamaanka Puntland ee Garowe xilli mucaaradku ay diideen ka qaybgalka doorashada iyo inay ku qancaan liiska soo baxay waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Banaadir Star Media